Veronica Doki waa macallimad ka soo jeeda dalka Spain. Waxa ay samaysay xeelad cajiib ah si cashir ardaydeeda u fahamsiiso. Arrintaas oo ka dhigtay in ammaan ballaaran ay ka hesho dunida daafaheeda kala duwan looguna hambaliyeeyay tallaabada ay qaaday. Mrs. Doki waxa ay soo xiratay dhar uu ku xardhan yahay sawir faahfaahinaya xubnaha jirka aadanaha ee qaybta gudaha. Arrintaas oo ardayda fasalka afraad ee iskuulka Catholic u sahashay maadada biology-ga ee ay dhiganayeen. Waxa ay u sheegtay jariirada El País ee ka soo baxda dalka Spain in dharkeeda uu raad kala duwan ku reebay ardayda, balse ardayda qaar waa ay qayliyeen, kuwa kale waa ay u sacbiyeen, halka ardayda kale la arkayay iyagoo ka walwalsan, kuwa kalena indhaha ay gabi ahaanba ka daboosheen. Macallimadan waxa ay doonaysay in ardaydeeda cashar si sahlan u fahamsiiso, iyadoo ka fogaanaysa qalabka balaastikada ee caadiga ah ee iskuulada yaala ardaydana wax lagu tuso. Dharkan cajiibka ah ayaa macallimadan waxa ay sheegtay in ay si lama filaan ah ku heshay, waxayna aragtay isagoo internetka lagu iibinayo. Waxa ay tiri, waxaan u arkay mid soo jiidasho leh, xubnaha jirkana si waadix ah ayay dushiisa ugu sawiran yihiin. Mrs. Doki macallin saaxiib la ahaa ayaa waxa uu ka qaaday sawir iyadoo cashirkii dhigaysa. Waxa uu u diray ninkeedii oo isna dhankiisa sawirada laga qaaday Mrs. Doki ku daabacay bogga Twitter-ka. Sawiradaas ayaa dunida si weyn ugu faafay. Dad badan oo ka soo falceliyay tallaabadaas aad ayay u amaaneen, halka qaar kalena ay walwal ka muujiyeen.